inagunba wax weyn u aragnay waxa magac lagu tiriyay waxa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nabi muxamed mise caruuru dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doonto laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisoo dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo عجبا بالغدغي لكن ريالي هذا عقلي في عنكو اكتو ما هي قبطان عقبان لون فيا تبتري اريا لا هذا لو برود دخغليه سو انت ما انت اصلا نولش بني ادم ما هي كورديسا عاق هدي لنا فيا او دبتري لو برود لغا دخ سارو waxba kuma kordhiso laakiin waxa loogu talagalay in qaabkan la inoo fakarsiyo waxa la yidhi ninka kani caaga la neefeeyay labada birood ee dhexeeyo $40 milyan oo dollar ku qaata $40 million ayuu ku qaata waxa jira Western Europe dhalinyarada waxa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sanadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intu ka yariyo qofka si loo hay karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si soo galin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968 kii ardadii jaamacaadku inqilaabadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar laba thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo sport and music baa la geliyay qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo caalamkan siyaasadani waxa ka bax caalamka la adigu leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamta dhageyso iyo dadka qaylinaya oo waliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature-ka hadii la eego dadkan qaylinaya oo dhamay cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubadda area kubaddu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonayay inuu wax ka sheego ama uu caabayo qofka bini aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhiso waa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad loo adeegsado ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameey jiray ma jirin nin yiraahdo inuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan u soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu kalihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubaddu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin ka waa laga saaro waxa la geeyo suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamada yaryar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida oo dhamay TV-yada hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunida muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhiyo la yiraahdo koobkii Yurub la ciyaaraya dadkii oo dhan koobabay daawanayaan waayo waa model si loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adneys weydiinin subaxii marka iskuulka isugu timaadaba waxa tiraadaan xalaya badiyay liiga ka sareeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sareysa iyaba lagu muransay Real Madrid baa wada maxaa waxan keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-ga qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunida ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah
yaa tusaale kuwa oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala waxaad garanaysaa noloshu inaad wakhti yar joogayso wakhtigaa yar aad joogtaana inuu yahay wakhti lagu itixaamayo lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato waxaad og tahay in aad dhiman doonto